الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، waxaynu jumcadii hore soo tilmaannay in qasaska ambiyada la inooga sheekeeyey ay cashar iyo waaye inoogu jiraan. waxaynu soo tilmaannay dunidu waa un dunidii, dhulkuna waa dhulkii, samadan iyo daruurahanna waa un iyagii, habeenkii iyo maalinta wareegayana waa un qoraxdii iyo dayaxii iyo mugdigii iyo iftiinkii. rabbigii abuurayna subxaanahu wa tacaala waa rabbigii ummadaha hore abuuray unbaa innagana ina abuuray. bini aadamna waa bini aadamkii un. intuu xubno lahaa baad leedahay, intuu damac lahaa baa la leeyahay, intuu baahi lahaa baa la leeyahay. tafkiirka bini aadamkuna waa isku mid xaqiiqadiisu. waxa la samaynayana qolba hadba duruufta ku xeeran wey. haddii waxyaabo fasaad keena iyo naf iyo shaydaan dadkii hore la xiriireenna, kuwiin baa la xiriira dadkana. inta fiicanna waa isku jid, inta xunna isku meelun bay maraan. laga soo bilaabo aadamaha intii la abuuray, intii wanaagga iyo khayr ka shaqaynaysana erayadoodu waa isu egyihiin. intii xumaha iyo fasaadka ka shaqaynaysana erayadoodu waa isu wada dhow yihiin. saa darteed qasaska ambiyadee laga sheekaynayaa mar waxay ku barayaan aadamuhu maraaxisha uu soo maray, duruufaha la soo darsay, loolankii ka dhaxaynaya dadka wanaagga ka shaqaynaya iyo inta xumaha wadda, wixii dhex mari jiray, waxa la ysku diidi jiray, inta wanaagga waddo ay ambiyadu hormuud u ahaayeen, ku dayanayay kutubtii ambiyada lagu soo dejiyey. waxay ka wada shaqayn jireen ummaddan wanaaggeeda. ummadda ha la wanaajiyo, xumahana laga hortago, wanaaggana ha la taageero, garab ha loo noqdo, ha la fidiyo. ambiyadu ereygaasay ku celcelin jireen. waxayna ka digi jireen mar waliba ummaddan in la fasaadiyo caqiidadeeda iyo diinteeda iyo fikirkeeda, ama dhaqankeeda iyo nafteeda iyo maalkeeda iyo akhlaaqdeeda in la fasaadiyo. mid bay ka midaysnaayeen inay wanaagga iyo islaaxa u yeeraan. mid labaadna waa mabda'a waa ka midaysnaayeen. mabda'ana waa la wada jecel yahay, nin walba waa jecel yahay ka dadka ugu khayrka daran, ka dadka ugu dhibka badan, ka xumaan abuurka ee xumaan kalkaalka ee xumaan fidiska ah, inuu wanaag baan ka shaqaynayaa yiraahdo. mabda' la jecel yahay wey. laakiin wanaaggu hadduusan lahayn mabaadiin la yaqaano oo wanaagsan, xumaantuna wax la yaqaano aanay ahayn, nin walba wuxuu samaynayaa wanaag u ah, wuxuusan samaynaynin ee isaga diidan wixiisana xumaan bay u tahay. tuuganimadaa u ah. markii tuugadaha laga qabta la yidhaahdana adduunku waa fasaaday buu leehay. nin walba wixii isaga taabanaya haddii mabaadi'du lunto, ani maxaa iidanahoo itaabanaya inta ii muuqata baa wanaag ah, wixii dhibayana waa xumaato. xataa ummadda dantooda hadduu yahay, tuugada laga qabtay isaga waa u dhib. nin boob wax boobayo boobkii laga qabtayna waa u dhib. isagu taasuu dhibka u yaqaanaa. qur-aanku wuxuu ina baray munaafiqiintii laba wajiilayaasha ahaa oo markay muslimka iyo nabiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam allahu akbar dhihi jiray. riwaayaadka siirada iyo taariikhdu qaar waxay sheegeen nabigu markuu mimbarka ku fadhiista jumcada, odaygii horjoogaha u ahaa munaafiqiintii cabdullaahi bni ubay tuu halkan oo kale istaaguu hadal hordhaca dhihi jiray oo dhihi jiray ayaan waad nasiib badan tihiin. nabigii u khayr badnaabaa ilaahay idiin soo diray, kitaabkii ugu khayr badnaabaa la idiin soo dejiyey, liibaanta labada daarood baa idinku jirta, waraaca oo qabsada. waxba kama jiro, beentii waa. xagga markuu tagana qoladan been baan u sheegaynaayo
asnaam la caabudo iyo dhagax la baryo iyo yuhuud gacan la siiyo la garab siiyo iyo sir iyo warbixin hoosta looga diro buu ka shaqaynayay markii la yidhi war waxaan waa xuye iska daaya laba wajiila qolabaad weji ula tegaysaan war waxaan ummadda akhlaaq xumada iyo diin xumada iyo shaksiyad xumadan way xunta iska daaya waxay dhaheen sidanaaba fiicnaanta ah waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard haddii la dhulka ha fasaadinino waxaan xumaantan iska daaya qaaluu inamaa naxnu muslixuun laba wajiilanimadaaba wanaaga tuugadaa la fiican khaa'inkana khaa'innimadaa la fiican laba wajiilanimadaa la fiican midka xumaha iyo daroogada ku jirta daroogadaa la fiican marka ay mabaadiidu lunta way inamaa naxnu muslixuun ilahay baa wuxuu alaa inahum lmufsiduun fasaadka waxa wada iyaga waay walaakin laa yashcuruuna isma garanayaan ma dareensana waxay ku jiraan inay tahay waayo ciqidadiina waa xumaatay fikirkii wax lagu miisaami jirayna waa lumay fircawn oo carruur yar yara biraynaya hooye umulaysoo la tira koobay markay dhashayna ilmaha la fiiriyo wiil hadduu noqdee la gowracay gobashii way ku dhashay baa markii ka daa la yidhi oo leh anaa ilaaha ana rabbukum laclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri leh yaa wuxuu leeyahay waxaas in laga hortago fasaad weyn muusuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahy innii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi lfasaad dhulka inuu fasaadiyaan ka baqaya markay mabaadiidu lunto fikirku qalloocsamo waxaa loo arkayaa inuu wanaagsan yahay ninkii ay waxa nacfi ugu jiraanba nacfigiisuna waa wanaag wixii jac xumaha ka yidhaahdoo dhanna dhib iyo balaayu wada waxaa lumaya haddii caqiidadii iyo fikirkii saxda iyo mabaadidu lumaan maxaa xun iyo maxaa fiican baa lumaya nin walba wuxuu rabaa fiican wuxuusan rabinna waa xun yahay halkaasay aakhirka tegi ambiyadu dhammaantood maynan ugu yeedhi jirin dadka wax dan iyaga gaaraho ay leeyihiin wax ummadda danteeda walidaalika nabi shucayb wuxuu leeyahay xoolaha sida xun loo maamulaya ka daaya markuu yidhi ilaahay keligiina caabuda waxay dhaheen waa yaabe ma salaadan aad tukanaysaa maanta adiga keentay inaad waxaan caabudnaba noo diido oo tiraahda ilaah keliya caabuda xoolihiinnana saad u isticmaalaysaan iyo xoolaha dadka xuduud ilaaliyo xakamay oo dadkaa khiyaamina oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa innaka la anta alxaliim arashiid wuxuu ugu jawaabay waxay war khiyaaray wanaag baan idinku yeerayaa anugu waxaan idinka reebayey inaan idinka caydsanayo anugu inaan gala raba maaha wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu anu wax intaan idinka caydsado anugu inaan idiin dabamara ma doonayo in uriidu ila alislaaxa ma istatactu intaan awoodo wanaaggiinaan doonayaa inaad wanaag heshaan baan doonayaa liibaantiinna labada daarood baan rabaa saasay dhammaan ambiyadu dadka ugu yeedhi jireen waxaa dhici jira marka loolan qaybta loolanku insha allah khudbooyinka dambaan kaga hadli doonaaye ambiyadu markay dadka ummadda in la wanaajiya la doonayo qaacido qur-aanka ilaahay nagu siiyey bay ka bilaabi jireen intaadan qofka dhaqankiisa bedelin intaadan qofka qaab noloshiisa bedelin isaga wuxuu rumaysan yahay baa la saxaa haddaadan qofka isaga sixin dhaqankiisa ma sixi kartid saas darteed ambiyadu ummadda markay wanaagooda saxayeen marka hore waxay kaga wada bilaabi jireen horta waxa aada rumaysan tahay aan saxan addoon baa tahay waa lagu abuuray wakti kooban baad joogi nolol dambana way kaa dambaysaa hadaf baa lagu abuuray rabbi baa ku abuuray jid buu kuu jideeyey dariiqiisa inaad raacda lagaga baahanya horta mabdaa aan isku raacno mabdaa caqiidada aan saxno rabbi keliya aan rumayno isaga aan amarka iyo cibaadada ka qaadanno waxay laynoo abuuray aan samayno adduunyadan markaan qiimaynayno
aan ogaan kownkan rabbi baa abuuray bilaash loogama tegin adigay lagu abuurayna iska noolow saad rabtayee laguma dhihin afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha ciyaar inaan idin abuurray miyaad u malaysay ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaanka intii la abuuray waxaad rabta samey in la yidhi miyuu u malaynayaa in qofka la baro rabbi baa ku abuuray noloshanna mid baa ka dambaysa wixii la sameeyo waa la isxisaabin uunkan rabbigii abuuray waa ogyahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir khalqigii iyo kownka uu abuuray hadaf baa loo abuuray ujeeddo qaanuunna waa loo sameeyey waajibkaagu abaalkiina inaad aqoonsatood shukrida wey waxaa lagaa rabana inaad samayso wey inaad ogaato weeye xisaab baa kaa dambayso waxaad samayso raqiib iyo catiid baa ku dul saaran kiraaman kaatibiina yaclamuuna qofka fikirka iyo caqiidadiisa horta in la saxa wey markii isaga laga saxa unkan sida uu yahay iyo noloshiisu siday tahay iyo waxa ay tahay inuu sameeyo iyo xisaabta ka dambaysa markaa la yidhaahdo haye waxaad leedahay ma saxan yahay wax saxan samee wax saxanna ku hadal haddaad samayn weydo oo ku hadli weydo berri xisaab baa kaa dambaysa god baa kaa dambeeya janniya naar baa taalla qofka caqiidada haddaan laga sixin awnkan sawirka uu ka haystaa aan laga sixin caqligiisuna taam ma aha waxbaa ka dhiman wuu duleelaa caqligiisu waxaa ku jiraayey waa weel duleeloo wax lagu shubay waayo hadda intuu duleelku la ekaado buu sii daynayaa ambiyadu saa darteed waxay isku wada raaceen horta in laga bilaabo qofka isaga caqiidadiisa iyo qalbigiisa in la saxo qofka bini aadamku soo u fakirku haysto buu hadduu xeer dejinna ku dejiyaa hadduu dal la macaamilina kula macaamilaa hadduu wax qiimaynna ku qiimeeyaa qof mabda-u ka khaldan yahay dhaqan fiican lagama sugo saa darteed ambiyada dhammaanteed waxaa la ina yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaquut ummad kasta waxaan u soo diray nabi ilaah keliya caabuda waxa kalena ka fogaada markaad mabda aqbasha seen u caabudaa dhaqankii sharaa'icdii iyo suluugii baa imanaya nabi walba wuxuu ka bilaabi jiray ilaah keliya caabuda intaa waa ka midaysnaayeen fii suurati اlacraaf qasas alambiya haddaad akhrido qisada nabi nuux ka soo bilow laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayr qowmkiisaan u soo diray wuxuu yihi tolkayow ilaahay caabuda alla kale malihiin markay qisada nabi nuux dhammaatay waxaa ku xigta qisadii nabi huud oo caad loo soo diray wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayr markay dhammaato saalix iyo hamuud baa ku xiga wa ilaa hamuuda akhaahum saalixan qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayr markay dhammaato nabi shucayb iyo asxaabulaykaa ku xiga wa ilaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayr dhammaan ambiyada qasaskooda markaad akhrido kow war ilaahay caabud qalbigaaga toosi caqiidadaada sax qalbiga nadiifi qofaan qalbigiisiiyo isaga la sixin dhaqanka lama sixi karo hadday boogtu dhacaan sii daynayso dhacaanka inaad tirtirtaay waxaa ka muhiimsan meesha dhacaanku ka imanaya marka hore markaad daweyso hal mar bay tirtirka inta kale u baahanta laakiin haddaad tiraahdo dhacaanka soo baxay iyo dhiiggaan tirtiri haddaad tiraahdo meeshii qurunka ahaydna dhacaanka ay sii daynaysaay wax qabad badan maaha saas darteed haddii ummadda in la bedelo rabo ilahay qur-aanka muxuu nagu baray ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim iyaga sida ay yihiin naftooda iyo daatadooda iyo ilaa ay bedelaan ummaddu isma bedesho xaaladday ku jiraanna ilaahay ma bedelo haddii xaaladda iyo dhaqanka iyo inay hagaagaan la rabo horta inagu inaan isbedelo wey qofku hadba qalbigiisa qofka cuqdadaysan eraygiisa iyo dhaqankiisu tiibuu ka falceliyaa qofka qalbigiisu daacadda yahayna daacadnimuu ka falceliyaa qofka meesha joogee ka buuxdo inuu wax khiyaano isdaba mariyo maantao dhan wuxuu u fikiraa
jidadkuu u mari lahaa khiyaanada laakiin qofkay qalbigiisa ka buuxda ammaano iyo ilaahay inuu ka baqo suu hantida iyo xoolaha u ilaalin lahaa buu ka fikiraa markaad dukaanka iyo hantida nin u dhiibanayso ninka tuuggi ihi suu kuu siri lahaa buu fikirkiisa iyo aqoontiisa u adeegsadaa iyo caqligiisa qofka ilaahay ka cabsanayana suu hantidaada u ilaalin lahaa ee u badbaadin lahaa buu caqliga iyo aqoontiisa u adeegsadaa saa darteed horta qofka iimaankiisa iyo ammaanadiisa in la dhisa wey qofka hanti u dhiibanaysaan waxaad dhahdaan qofkan aqoontii waa leeyahay ammaanadiisa ka warran baad dhahdaa halkaa waxaad ka garatay ammaanada aqoontu hadday qalloocata ammaanada qalbiga iyo iimaanku aqoontu qalloocii bay u adeegaysaa caqliguna ma dhammaystirna inta aan iimaan saxa jirin adduunyada hadda waxaad arkaysaa dad la yidhaahdo waa aqoon-yahan iyo professor jaamacaduu diyaarado u kala raaca furayaasha caalamiga ah looga yeedhaa talooyinka murge ee siyaasad iyo dhaqaale iyaa loogu yeedhaa markuu soo rawaxa galabtiina neef lo-a xaarkii iyo kaadidii buu barakaysanayaa isku masaxayaa jiir buu caabudayaa oo rootiga la cunayaa halkuu ka goostay ka goosanaya away caqligii jiir muxuu taraa oon wasakh iyo jeermis ahayn neef lo-a kaadidii iyo xaarkii oo lagu qabaysanayo waan filaya ina aragteen corona isaga daweynaynaa kuwa leh oo nag jiri xaarkiiyo loodii kaadida intay ku qabaysteen nin dhan oo professor ahaayoo caaqil ahaa baa lacag bixin oo sanam dhisi isagaa lacagtiisa ku dhisi waardiyahana isagaa lacag bishiisiin qashinka ku dhaca iyo shimbirta ku xaartana iskama tiri kare isagaa ka tirtiri laakiin laxdada uu wax rabo awooddiisa ka baxsan isagu hoos fadhiisan oo gacmaha iyo loojilbaha qabsan oo kanaan xaar daqsi iska kicin karin oon qashin iska qaadi karin oon tuug iska waardiyeyn karin oo adigu lacagaad ku bixinaysa intaa muxuu ku tari aduguba jeebkaaga biishaaye kuwa ilaahay sow ma aha wain yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuh dacufa aalibu walmatluub away caqligii xaggee aaday aqoontii xaggee aaday adduunkuu maraya xaggee aaday caqiidadu markay xun tahay caqligu meel buu ka liigaj garaynayaayoo waxbuu sii daynaya beerdaraynaya saa darteed meelahay qur-aanka inagu yidhi aakhare marka la tago kuwii sidaas ahaa waxay wada qiranayaan in caqligoodu naaqus ahay wax kaga jiray wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu haddaan wax maqlayna ama caqli fiican leenahay maa kunnaa fii asxaabi saciir naartaa maanan galleen naartaa lagu gubanayo waxaana geliyay caqli daro caqli naaqisa wey caqli aan garanaynin weeye caqiidadu markay fasaada qofka wax walbaad ka filan shuuciyaa laynagu imtixaanay ilaah ma jira markay dhaheen wax allaalay wixii xumaayoo dhan bay xalaaleeyeen xoolaha dadka dowladdu inay xoogtay xalaaleeyeen hanti wadaag baa loo bixiyey hanti goosad baa laynagu imtixaanayo markii caqiidadii ka xumaatay wax kasta oo xaaraan oo akhlaaq dilayaa laga ganacsaday qofku qiimo ma leh laakiin shilinkuu soo saarayaa qiimo leh lidaalika aadamihii wuxuu gaaray xoolahaa ka qiimo badan oo xayawaankaa ka qiimo badan oo wax kastaa ka xuquuq badan isagii wax maamulaya wax soo saaraya wax u fikirayay wax kastaa ka xuquuq badan kuwii fircoon oo kale aynugu soo noqdayo ummadaha inta lagu duulo oo carruurta la gowraco oo sunta lagu daadiyo baa laleeyahay saasaa fiican oo xuquuqul insaan baan ka hadlayna maxaa yimid muctaqad fasaaday baa fikirkii iyo qawaaniintii iyo wax walba saameeyey saa darteed mas'alada koobaad ay ambiyadu isku raaceen qur-aankuun ilaahay inoogu tilmaamay ummad haddii la saxa la doonayo wanaag in la gaarsiiyo la doonayo horta nafteeda in la saxo wey haddii fikirkooda adduunka iyo sida in loo dhaqmo ay tahay in la saxo la rabo horta caqiidada kownka iyo adduunyada ay ka rumaysan yihiin in la saxo wey haddii la rabo dhaqankooda iyo ficilkooda in la xakameeyo oo xumaha laga reebo wanaagna la dhiirigeliyo in iimaankooda daarta aakhara la dhiso wey qof aaman rumaysnayn in dib xisaab kaga iman doonto dee wuxuu doonuu iska samayn
qofka og berri aakhare inay ka daba iman doontana waxbuu ka fiirsan hadduu khaldamana suu u noqon lahaabuu ka shaqayn oo siduu ilaahay yidhi buu noqon ina aladiina attaqow idaa massahum taa'ifun min ashaytaani tadakkaruu way isxasuusanayaan saa darteed ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim saa darteed islaaxa iyo wanaajinta iyo saxidda bulshada ee ambiyadu qasaska qur-aanku waxay ina bareen basharka haddii la rabo in la saxo marka hore caqiidadooda iyo fikirkooda iyo tasawurkooda waa in la saxaa kaa haddii aan la sixin ummadda lama sixi karo caqiide xun camal keliya lama daweyn karo niman tuugadu inay xun tahay loo sheegin wuxuu geystay xada maalin kasta ma gudi karno ummadda tuugada inay xun tahay haddaan laga sixin aanto dhan aqaladiiyo meel walba lama waardiyeyn karo ummad wada tuuga waxba lagama waardiyeyn karo soomaalidu sowma odhan tuugo kula taalla tabtaada ma weydo qofkan aadamaha waxaa kaa magangelin kara iimaan qalbigiisa ku jira iyo damiirkiisa oo uu ilaahay kaaga cabsadaa kaa nabadgelin karta inta adoo aad arki kartana waa yartahay haddii kale maalaan dowlad iyo qaanuun iyo kameero ka jirinna wixii la rabaa la samayn dowladduna way seexataa qaanuunkuna wuu seexdaa aadamahana waa la isasiraa laakiin maxay noqon cumar radi allahu canhu ardaahu habeen isagoo wareegaya buu gabadh iyo hooyadeed murmayuu dhegaystay waxoogay caano yar bay suuqa geysan jireen caanihii baa suuqi ku yaraaday duqdii carruurtiiya waxay dabacday waxoogay biyaa inay ku yar kordhiyaan caana cumarna dowladdii buu ahaayo xilligu waa iska habeenee jidadku habeenkii wareegi jiray dadka xogtooda si u ogaado yaa cabanaya yaa wax ka shaqaynaya gabadh iyo hooyadeed baa murmaya marka duqdii waxay tihi aan wax ku yar dar markaas waxay tihi dowladdu waa diiday ninkii cumar ahaa ee madaxda waddanka ka aha waa diiday waa habeenay guriga nagaa joogna cumar bisagaana arkay maamaray tiri markan oo kale dowladdu waa hurdaa qaanuunkuna waa seexday laakiin maxaa shaqeeya iimaankaa shaqeeya cabsida ilaahay baa shaqaysa duqdu markii dowladku cabsiintii hore ay ka jawaabtay tiri dowladdu way hurdaa gabadha waxay tihi hadduu cumar hurdo aduusanna arkin rabbigii cumar lahaa soo nama arko markan maxaa shaqeeyey qofka isagoo keligiia marar badan adoo keliga ah baa wax badan kuu haadaya waxaa kaa celinaya iimaankaagaa kaa celinaya aakhare xisaabtankaa kaa celinaya damiirkaa kuu diidaya saa darteed qofku markuu dhinacaa ka saxan yahay wixii xumaa waardiye uma baahna markaad sooman tahay eed keligaa guriga albaabka kuu xihan yahay cuntada iyo cabitaanka maxaa kuu diida iimaan baa kuu diida ummadda haddii iimaankii max laga saxo dhaqankeedu markaasuu saxmi karaa waxaa loo sheegi karaa keliya waxa waa xun yahay waxa waa fiican yahay waxa ha la iska daayo waxa ha la sameeyo aqoontii in la gaarsiiyo in yaroo fallaagowdo oo la kari waayana awood iyo gacan bira lagu qabta keliya ummaddu baahataa laakiin ummadan in damiirkeedii iyo diinta caqiidadeeda la sixin dhaqankeeda lama sixi karo waa dacwadii ambiyada iyo siirada midaan ka dhaxalay wey saa darteed cid kastoo mujtamaca inay islaaxiso doonaysa mujtamaca inay bedesho wanaag u bedesho xumaana ka bedesho doonaysa marka hore caqiidada iyo fikirka mujtamaca la saxa markii aqlabkiisu saxmo inta yar kollaba in xun lama waayo dabdamis baa intaa lagu wadaa ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa xaqa iyo iimaanka inuu inaga iyo ummadeennaba inuu soo dabaalo kuwa damiirkooda iyo qalbigooda iyo baatinkoodu saxmana inaga dhigo in sha allah walilxadiidi baqiya allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaha allahuma inaa nasaluka ridaaka waljanna ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اهدنا بهداك اللهم اجعل عملنا في تقاك اللهم اجعلنا ممن يسارع في رضاك اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تجعلها في من خالف امرك وعصاك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار